qolo qolo dawlad laguma dhisi karo qabyaalad dawlad laguma dhisi karo nin jeclaysi dawlad laguma dhisi karo dan gaar ah dawlad laguma dhisi karo walaalahay reer Guriceel oo la garanayo taariikhdooda galmudug waxay idinka rabtaa hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay haddii reer Guriceel ay u mudoobaan inay wax badan ka tari karaan midnimada inta kale ee reer galmudug waxaan rajaynayaa marka dhallinyarada hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo reer galmudug oo ay ganacsatada ugu horeyso inaan nidhaahdo waxaa la soo gaaray wakhtiga la dhisi lahaa galmudug midaysan hayaysan oo toosan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku baaqay in si shuruud la'aan loo joojiyo colaadda dhiiggu ku daadanayda ee ka socda deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan walaalahay reer galgaduud iyo walaalahay reer Hiiraan inaan iyagana ka codsado si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn Matabaan oo ilguulle la yidhaahdo in lagu daadinayo dhiig waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaw ama reer galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u nimid idinka inaan idiin shaqayno inaadna amartaan inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn galmudug dhammaystiran midnimo ku dhisan cadaalad ku dhisan horumar ku dhisan galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer galmudug inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hoggaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dawladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tegey laga bilaabo dhuusamareeb cadaado xeraale huurshe caabudwaaq iyo Guriceel oon hadda taagannahay meel walba oo aan tagnay shacabka reer galmudug waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay dawlad goboleed u adeegta shacabka reer galmudug